bismillaahi raxmaani raxiim waxaanoo wanaagsan akhyaarta hawada iga daawanaysa ku soo dhawaada wararkii caalamka kuwoodii ugu dambeeyay oo hadan kale ka daawataan page-kan waa 4 bisha afraad 2026 maqal wareedkan intuu soconaya hadduu eebeed waxaad ku maqli doontaan Iiraan oo sheegtay 160 diyaaradood in ay soo riday iyo sidoo kale Iiraan oo laga weeraray ilaa iyo 4 ilaa iyo 6 warshadood oo muhiim ah oo ku yaala Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan dhexdeeda Iiraan oo iyaduna sheegtay in ay gantaaladaasi ay ka jawaabtay ayna duqeyday sidoo kale warshado ku yaala dalkaasi Israa'iil ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada kacaanka ee Iiraan qaybta lagu magacaabo Khawatimul Anbiya oo sheegtay waxyaalihii ay ku soo rideen diyaaradihii Mareykanka ee lagu magacaabi jiray Black Hawk iyo F-35 iyo kuwa kale iyo Black Hawk midda lagu magacaabo waxyaalihii ay ku soo rideen ama gantaalihii ay ku soo rideen ayay waxay ka bixiyeen sharaxaad dheeraada taasna muuqaalka ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal Iiraan sidoo kale waxay hanjabaad ay u dirtay dalalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga Arabiya boqortooyada ah maxay tahay hanjabaadaasi loo diray intaan ku soo gudbin qodobada faahfaahsan fasal muuqaalka leega saar oo share garay oo u geed dadka u baahan macluumaadkan aynu ku bilownay saaxiibayaal saad muuqaalka hordhiciisa ku maqlayseen daawadayaal Iiraan ayaa maanta waxa laga weeraray barqadii ilaa iyo 4 ilaa iyo 6 warshadood kuwaas oo soo saari jiray waxyaalaha uu u baahan yahay dalku sidoo kale waxa kamid ah waxyaalaha uu soo saari jiray sida qalabka dhismaha qalabka baabuurta sidoo kale taayirada iyo wax la mid ah iyo sidoo kale kiiniko iyo wax la mid ah ay soo saari jireen iyadoo Iiraan ay cunqalatame saaran tahay ayaa haddana waxay uga duwan tahay wadamada khaliijka waxyaalaha ay dalkooda u baahan yahay in iyagu ay soo saartaan taas oo karti ay dheer yihiin wadamada khaliijka saaxiibayaal Iiraan sidoo kale waxay sheegtay warshadahaasi la duqeeyo 4 ilaa 6 gaaraya maadaama dhowr mar oo Mareykanka ku hanjabay shaqaalihi halka ku sugnaa goor horeba in halkaasi laga daadgureeyay oo ay duqeeyeen warshada oo kaliya wax saas u sii badan aysa gaarin sidoo kale Mareykanka ayaa wuxuu sheegay markii la duqeeyay waxaad haddana arkaysaa uu yiri isla markiiba iyadoo haddana la dayactirayo iyo dib ay u shaqeynayaan buu yiri nimankan Iiraaniyiinta uu yiri oo Farisiinta waa kuwa mucjisa ah oo aanu ilaa imika aanu ka yaabanahay oo aanu loodin laanahay ayuu leeyahay Mareykanku sidoo kale ciidamada kacaanka ee lagu magacaabo Khawatimul Anbiya ayaa waxay sheegeen gantaalada cruise-ka ah ee ay ku soo rideen diyaaradaha Black Hawk iyo F-35 iyo diyaaradda kale ee loo yaqaano A-10 intaba in ay yihiin gantaalo difaaca iyo nidaam difaac oo ay sameystaan ciidamada Iiraaniyiinta ah taas oo been ka dhigaysa in difaacyo casri ah ay Shiinaha iyo Ishaag iyo Ruushku ay Iiraan siiyeen taas oo iyaduna meesha ka saaraysa wax Iiraan ay soo saaratay in iyadu ay isku difaacday sidoo kale ciidamada kacaanka Iiraan iyaguna waxay sheegeen sidoo kale markii halkaasi warshadahaasi la duqeeyay iyaguna inay taasi bedelkeeda ay ka jawaabeen oo ay warshado ku yaala bariga Israa'iil sida magaalada Qudus Haifa Daarusabca iyo meelo kale ay duqeeyeen iyaguna sidoo kale meeshii laga duqeeyo kale ay halkaasi duqeeyeen Siiriguna uu isqabsaday Israa'iil magaalooyinka kamid ah sidoo kale waxa la arkayay meelo kamid ah Lubnaan oo Israa'iil ay duqeysay iyo Xisbullah iyo iyaguna duqeyn ka geystay daanta galbeed laakiin magaalada Qudus ee la haysto iyo sidoo kale meelo kale oo Israa'iil kamid ah ayay ka geysteen iyo Tel Aviv halkaas iyaguna Siirigu isqabsaday waxaad moodaa markii laga weeraray Iiraan qayb muhiim ah iyaduna inay qayb muhiim oo kale Israa'iil ay ka weerarayso sidoo kale wali waxa la leeyahay diyaaradii la soo riday hal duuliye ayaa la helay oo Mareykanku ay qaateen kaas oo qalab cas oo ku xirnaa laba diyaarad oo helicopter ayaa qaaday mid waardiyeynayay iyo mid difaacaysa andho iyo mid xarig u laalaysay oo gabi ahaanba soo dalaaday halka midkii kale wali la leeyahay saaxiibayaal bariga dhexe oo wali holcaya sidoo kale waxaynu eegi doonaa macluumaad ku saabsan wadamada Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Arabiya oo boqortooyada oo loo hanjabay waxaana lagu hanjabay diyaaradda drone-iska ee shabahda diyaaradda Iiraan ee drone-iska ay sameeyay ee Shaahid lagu magacaabo ay ishabahan oo lagu magacaabo Winyon taasna waxa sameeyaa la yiri Shiinaha waxaana haysta la yiri wadamada Imaaraadka Carabta iyo boqortooyada Sacuudi Arabiga
waxayna sheegtay markii halkaa laga soo tuuro wax idinku aad leedihiin annaguna shaqadanada ayaanu idinka qabsan doonaa ayaa loogu hanjabay wadamadaasi saaxiibayaal